السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان با صحابتي qaaliga ku xidhan in beauty soo dhawaada hadii aad nagu cusub tahay please subscribe like comment share gambaleelkana furo si aad noola socoto fiidiyoogana dhamayso si aad uga faa'iideysato maanta waxaan idin wadnaa maanta walaalaha iyaga qaaliga aan jecelnahay waxaan wadnaa biinan timaha ah oo ciyaalka ah biinankani waxay ka caawin doonaan inaad ilmahaaga toobkiisa biin u eeg samaysato markasta alaabta yar baad u baahan tahay fudud waxaad u baahan tahay intan aan halkan kuugu soo diyaariyay biinankan waa biinanka looga xidho timaha lagu koofeerada qalinka irbad yar baad u baahan tahay waxaad u baahan tahay maqaska iyo hot gluegan xabagtan kulul iyo waxaad u baahan tahay kiishkeeraha wax alaabaha lagu soo iibsado ama jawaanka yar waxaad soo qaadanaysaa qalinka saasaad u calaamadinaysaa qaybta aad goosanayso iyadoo wareega oo circle oo kala socaalka bay fahanka ugu badan u baahan yahay saas qalinka markaad saa ugu sawirato maqaskaad ku goyn doontaa inta qalinka aad ku sawiratay baad si fiican u goosanaysaa qaab yar wareega waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan dumarku waxyaabo badan oo gurigeena yaallo aynu iska tuurnayno u naqaanin inay faa'iido lahayn wax walba laga faa'iideysan karaa karatoonta aynu tuurno wax qurux badan oo decoration laga sameyn karaa caagadaha yar ee waaweyn ee waxyaabaha timaha la marsado sida xamaam saydi waxaas oo kale iyagoo decoration laga sameeyay channelkaad ka helaysaa wax walba faa'iido ay leeyihiin haddii aad baratid marka bacda yar ee aynu alaabaha ku soo iibsana maanta waxa quruxda badan baynu ka sameynaynaa la soco qaabka circle-ka markaad soo goosatid waxaad u baahan tahay qaabkaad u sawirtay inaad waraaqda u goysid saas oo kale u wareejisid waka halkii qalinka aad marisay unbaad la wareejinaysaa saas oo ku soo baxaysaa sida dheer ee isku xidhan baad u goynaysaa wakaas geeskiisa yare koonaha isku siman baad soo qabanaysaa irbadda hadaba markaad isticmaalaysaa waad ku duubaysaa irbadda markaad duubaysidna waa inaad qaab yaro fiican kuugu duubanto wakaas markaad xoogaa duubtid ma dhib badna aad bay u fududahay inaad fahanto bay u baahan tahay saasaad u duubaysaa kadib irbadii waynu ka saarno waxoogaa markaad yar duubtid gacantaadiiba qaban karaysa wakaas saasaynu kusoo dhammaynaynaynu wareejinaynaa wuxuu kuu soo bixi doonaa ful yaroo qurux badan oo aadaad uga hesho wakaas waa adiga wada duubayntaas waa intii yaradee uu ku dhammaanayay waka fulka yarba kuu soo baxay quruxda badan sug si fiican si aad ugu aragto dhulkaad dhigaysaa si uu kuugu yar kala baxbaxo u yar ballaadho waka halkaa hot gluegaynu marinay kumaan tusin xabagtan isugu yar dhajiyay waka fulka yar quruxda badan ee indhaha soo jiidanayo noqday maasha allah waka hadda talaabadii labaad baynu qaadinaa in yaroo fulka leeg baad soo goosanaysaa intii aad baashaad ka sameynaysay waxaad soo qaadanaysaa biinkan yare birta ah saasaad u dhexgelinaysaa waynu isku sameynaynaa hadda isku xidhaynaa fulkan yar iyo birtaasaynu isku xidhaynaa xabagtaad si fiican u marinaysaa hot gluega xabagtan waa xabagta yar kulul fiishtaad gashanaysaa marka kuu kululaato waa baskooladii saasaad sameynaysaa waka saasaad iskugu dhejinaysaa biinka yarba kuu soo baxay quruxda badan timaha meel kasta kaga qaban kartid badanaa wuxuu ku soo baxaa timaha marka koronta loo duubo dhinacyada lagaga xidho ciyaalka qurux ku noqdaa wakaas iyagoo badanna waa kuwan waxaan ugu talagalnay hooyooyinku inaanay caruurta biinankooda mar walba iska samaysan karaan biin kasta dhar kasta kalarkoodaad u samaysan kartaa isku haya iskama hagrado adigu ha isciilin iska baro waxyaabahan yaryar iyo decoration yaroo gurigaaga waxyaabo qurqurux badan aad u samaysan kartid bacdan maalin walba aynu tuurnaa xashiishkaynu ku ridnaa haddana waxyaabaha faa'iidada laga samayn karaa maasha allah waka la soco
carruurtaada u samayso ku xidhno channelkaaga ka faa'iidayso saasuu inoo soo baxay maalin walba toobka ilmahaaga u xidhiso wax u eeg baad u gelin karaysaa waanaad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan waxyaabo badan oo cusubna waan soo wadnaa la socda insha Allah oo idin cajab gelin doona insha Allah